من مشرحة وكمشة تنسيقية ومانت مشرح رسمية هي وصوحري قاسم هذا سليمان والصور كشرحن خبرة أو أنت كل يبرع عنه كشرحنا أنا قولي جيب على ويرري وأنا اللي تقولي waxaan u aragnaa annagu inay dib provocation u tahay annagu ma jeclin dhibka warashaan u diyaar garownay waxaanan ku haweynay inaan annagu guulaysan doono marka annaga dina naguma jirtaba waxa la yaalo wixii doorashada qasaya ama carqaladaynaya danteedu kuma jirto waxaan ugu tagnay maanta musharaxan ku xidhan saldhigga dhexe qaasim aadan suleymaan inaan soo booqdo oo dee xeerkuna na siinayo qofkii halkaa ku jira in la soo booqdo oo xaaladiisa laga warayo kaliya saldhiggu diidma cad oo badheedha ayuu nagala hor yimi annagu madaxda xisbiga annagu xildhibaanadii qaranka ah way ahayd inaan aragno oo soo eegno oo salaano oo aan wax kalaba kala hadal ayuu yidhi maya idiin sii dayn maayo waxaan aragnaa markaa inay taas qalad weyn tahay inantaana lagu raadsanayo xaq darro oo la leeyahay maxaad xisbigaa isaga soo sharaxday macnuhu waa intaa inantaa wax kale lagu raadsan maayo maxaad xisbigaa isaga soo sharaxday waa lagu raadsanaya shuruuddoodii kaloo dhan bay dhammaysay waa musharax rasmi ah gurigii baa la tegey waxay ahayd inta warqad loo geeyo la yidhaahdo saldhigga skeen in guriga loogu daato maaha xildhibaankan waxaa loo diiday dadkii cunada u geeyey ayaa qaarna la garaacay loona soo hanjabay waxaasna waxaanu qaadan karra maaha qaadanna mayno ummaddana waxaanu u sheegaynaa inaan waxaa loo dul qaadan karin ninkani waa musharax haddii dembi lagu haysto waxaa inta loo yeedho saldhigga laydhaa kaalay waa lagu baadhaya waxbaa lagu weydiinaya su-aalaa lagu weydiinaya in la qafaasho oo meel lagu xidho oo ehelkii iyo annaga baadna loo diido annagu dowdaraan u aragnaa qaadanna mayno ma qaadanayno inantaana waxaanu leenahay waa ceeb waa xurmo waa ramadaan in gurigeedu loogu dhaco xisbi baanu madaxdoodii baanu nahay in nalala socodsiiyahay haddii wax lagu haysto waxaasaa lagu haystaa waynu wax ka ogaano marka annagu waxaana qaadan mayno waana khalad dee wixii ay lahayd tallaabana oo ka qaadanayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بس الدرة خارك يجي بسرعة